Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan ama galab wanaagsan xilli walbo ay ku tahay. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan nin aad u nasiib badan kaasoo dhimasho ka soo badbaaday. Noole aad u weyn oo laqay nin misane ka soo badbaaday. Nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa dhowaan ka badbaaday arrin geeri ku sababi kartay. Soomaalay arrinta ninkan uu la kulmay ma ahayn arrin sahlan, waayo wuxuu ahaa mid ku sugnaa qadar 30 ilaa 40 sekond ah ama ilbiriqsi sidaad u taqaanaba noole calooshiisa. Bal isweydii adigu waxaa tahay wax yar oo la liqi karo misane nasiib darro. Maalin ayaa noole weyn sida nibiriga aan ka sheekayn doono ayaa ku laqay gebigaaba. Haddana nasiib wanaag wuuba iska kaasoo tufay. Waaba mar kale dhalo adoo weyne. Yaanan idinku dheerayne. Nin kalluumaysato ahaa oo lagu magacaabo Majel Barkad ayaa nibiri laqay asagoo islahaa soo kalluumayso. Ninkan kalluumaysatada ah oo ku nool dalka Mareykanka ayaa ka sheekeeyay sida uu uga badbaaday nibiri laqay xilli uu ku sugnaa xeebaha gobolka Massachusetts ee dhulweynaha Mareykanka. Ninkan ayaa la sheegay in 30 ilaa 40 ilbiriqsi uu ku dhex maqnaa caloosha nibiriga ka hor inta uusan soo tufin. Majel Barkad isaga oo jahawareersan ayuu bannaanka yimid inkastoo uusan dhaawac culus soo gaarin. Waxaa kala baxay jilibka oo keliya. I'm here to tell it, and I thought my legs were broken, but I'm all bruised up, and Wow, wallaahi haddii aad maqashay qofkaas tiisu ma gelin. Waa sidan oo kale cajiib. Inta xabad kaniini ah camal lagu laqo, haddana lagu soo tufo. Waa arrin kale. Xaqiiqdii waa arrin cajiib ah. Nibiriga ayaa dhirirkiisu gaarayay 50 feet oo u dhiganta 15.24 mitir. Culayskiisana waxaa lagu qiyaasay 36 tan oo u dhiganta 35,000 oo kiiloogaram. Sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee ka shaqeysa ilaalinta duurjoogta, guud ahaan nibiriga ku nool dunida waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 60,000. Tiradani waa qiyaasaad. Master Mitchell muxuu yiri bal? Waaba nin calool ka soo laabtay. Master Majel Barkad waa nin 56 jir ah. Wuxuu warbaahinta Cape Cod Times u sheegay in subaxnimadii Jimcaha uu weerar ku soo qaaday nibiriga xilli ay saarnaayeen dooni yar. Kadib markii aan ka booday doonta oo aan quustay, waxaan dareemay wax culus oo i soo celiyay. Waxaan galay mugdi, ayuu yiri kalluumaystaha oo u waramay warbaahinta. Wuxuu isku dayay in uu iliqo. Master Barkad wuxuu mooday in uu soo weeraray libaax badeed. Waxaan ogaaday in uusan i qaniinin, ayuu yiri. Master Barkad wuxuu ka dhawaajiyay in nibirigu uu soo tufay isla markaana uu badda dul sabeeyay. Wuu i soo tufay. Waxaan dul sabeeyay badda. Waxaana noqday qof xor ah. Mana rumaysnayn arrintaas. Bal isweydii daawade, xaaladaas oo kale waaba makaag walle. Ninkan saaxiibadii ayaa u soo gurmaday isaga oo dul sabeynaya badda xilli uu xirnaa qalabka ay xirtaan badmaaxiyiinta, waxayna soo saareen dooni. Waaxda gurmadka degdega ah ee magaalada Provincetown ayaa sheegay in uu soo gaaray wicitaan ah in gurmad loo fidiyo nin kalluumaysta ah oo dhaawac soo gaaray. Sidii ayaana lagu geeyay isbitaalka. Ugu dambeyn, su'aasha mowduuca daawade, ka waran xaalad noocan oo kale haddii aad geli lahayd kadibna aad soo badbaadi lahayd? Jawaabtiina waan sugayaa mudanayaal iyo marwooyin. Fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid channelka, sidoo kale like saar muuqaalkan, share-tana ha ka hilmaamin. Intaasi waan kala mudannahay. Waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.